weligaa intaad meel wax dhigatay meelawday oo ma xasuusan weysay dabadeed ma doondoonto raadintiisa balamada warkooda iyaga daa dhab ahaantiinan wax ilaawno ma ahan wax badankiina ku cusub ama la yaab leh sababtoo ah insaankuba waa mid loo abuuray hilmaanka badan hase yeeshee inaan ilowshiyaha daa'imna mar walba waa dhibaato aan la dheelsan karin xasuus xumo ilowshiyo iyo arbashaada nolol maalmeedku intaba waxay u muuqdaan kuwa soo food saari kara qof kasta oo naga mida mar ka mida noloshiisa hase ahaatee qofku inuu lumiyo waxyaabaha qof ahaan taabanaya waxay taasi u muuqataa caqabad weyn oo ka haysata xagga nolosha haddaba inaad ilowdo wax badan oo ah waxyaabaha kugu xeeran ayaa ah caqabad kale waxaan idinla wadaagaynaa daawadayaal dhowr qodob oo ah kuwa inta badan saamaynaya nolosheenna isla markaana keeni kara in aan weyno xasuusteenna waxaana ka mid ah qodobka koowaad qalitaanka qanjirka dhuunta ee thyroid gland qodobkani waxaa loo muujiyey si khaas ah maadaama qofku uu dareemi karo qandho kadibna qarqariya daba socoto dareenka walaaca iyo baqdinta waxaa laga yaabaa qofka inay ku rido niyad jab marka tani dhacdo qofku waxa uu bilaabaa inuu arko daciifitaan xagga xasuusta ah namber 2 inaad dareento heerkulka sare ee be'ada kugu xeeran marka heerkulku kor u kaco qulqulka dhiigga ayaa kor u kacaya fikirka aadanaha iyo xasuusta ayaa laga yaabaa inay taasi saamayso qodobka saddexaad hurdo xumo ama hurdo la'aan dadka aan sida fiican u seexan dhibaatooyinka haysta mar walba waxaa ka mid ah xasuusta oo yaraata dhibaatooyinka xagga maskaxda iyo murqaha si looga fogaado haddaba xaaladani waa inaad hurdaa hurdo kugu filan iskuna daydaa inaad seexato xilli hore namber 4 murugo cadeymo badani ayaa xaqiijinaya saamaynta niyadjabka ee xasuusteenna dadka qaba niyadjabka waxay si tartiib u lumiyaan xiriirka u dhexeeya dareen gudbiyaasha kadib marka ay lumiyaan astaamaha caadiga ah ee lagu yaqaano murugada nambarka 5 sigaar cabidda aafada sigaar cabiddu kuma koobno oo kaliya had iyo jeer saamaynta xagga samabada laakiin sidoo kale waxa ay ku lug yeelataa xasuusteenna tani waxay yareyn kartaa ka shaqaynta iyo isku gudbinta macluumaadka xagga maskaxda qodobka 6 jimicsi la'aan jimicsigu wuxuu jirka ka caawiyaa sidii si fiican loogu hagaajin lahaa tayada hurdada niyadda iyo xasuusta nambar 7 fitamiin la'aan iyo macdan la'aan maqnaanshiyaha fitamiinada iyo macdanta jirka u baahan yahay waxay kaalin weyn ka qaadan kartaa in si xun ay u saamayso awoodda fikirka qofka iyo xasuustiisa waxayna adkaynaysaa in maskaxdu dib u hanato xasuusta miyaanay haddaba wanaagsaneyn inaan ilaalino xasuusta liidata oo aan tixgelino dhammaan qodobada la soo sheegay si loo ilaaliyo xaalad caafimaad leh iyo xasuus wanaagsan si kastaba warka wanaagsani waa in sababaha keena badanaa xasuus la'aanta la aqoonsan karo lalana tacaali karo